garanwaaga guryihiinna ma ka soo saaraysaan ma tilmaamaysaan toddobaadka haweenka Soomaaliyeed ee garanwaaga guryihiina ka soo saara iyo xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka maalintiisa afraad oo ay dardar gelinayso wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ololaha toddobaadkan waxa uu ahaa taakuleenta haweenka naafada ee gobolka Banaadir iyo garanwaaga guryihiina ka soo saara haweenka baahiyaha gaarka ah qaba ee 17 degmo iyo 3 deegaan ee gobolka Banaadir ayaa deeq raashin ah loogu qeybiyay degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo la hadashay dhammaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa kula dardaarantay in ay il dheer ku eegaan garanwaaga lana soo wadaagaan laamaha amniga ee caasimadda Muqdisho. Kan ay iskugu timaadeen idinkoo ka kala yimid daafaha magaalada waa ogtihiin Soomaha ma ogtihiin garanwaaga guryihiina ka soo saara diyaar ma ogtihiin gabar hadday tahay iyo hadduu wiil yahay idinku soo tilmaama gobolka Banaadir waad ogtihiin agaasimihii gobolka meesha looga kala orday sababtoo ah naafanimada dadkiina la nool oo kale u ahaa isha ku haaya xaafad kasta iyo guri kasta maxaan isku ognahay inaan garanwaaga la tilmaamo dhammaan hay'adaha amniga gobolka Banaadir ciidanka booliska Haramcad amniga kulli waxay idin yihiin diyaar dawladdiinu waa idin ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda garanwaaga guryihiina ma ka soo saaraysaan mada Warta Nabadda madam Seynab mudanteena iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir mudan Jawaahir Baarqab dhammaan waxaan uga mahadcelinaa gudoomiye Zeynab in ay maanta martigelisay dadkii naafanimada la noolaa mudana gudoomiye Jawaahir Baarqab habeen iyo maalin shaqada socotay waa idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay oon magacooda ku hadlayna hogaamiyaashii haweenka toddobaadka haweenka Soomaaliyeed iyo xuska maalinta haweenka adduunka toddobaadka garanwaaga guryihiina ka soo saara insha Allah taala guulaysta barakooba